إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وبعد وأيامه إني عادي هاي كلمة قاعدة جرني هل حديثنا كبدين من مانتا وحديث أدب المفرد كبخاري صحيحا وكجرا أو ضفيل باوحا ويسئل علي بن أبي طالب هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة علي بن أبي طالب أي واحد لو يدي رسولك عليه الصلاة والسلام وحان ضدك كله والشيء بيدك قاريا قال لم يخصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس وحان ضدك كلامك قاريا لأنك كونين نوجم شيء من وحان ضدك واحد ضدك أو شيء قبالنا الله شيء إلا بما فيه دراب السيف قال كسيف تأيوك صار ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب وحلو وحن قال كان سيفتي ذا كشرا أنا هاي والرسول قاري بوشيء قال كيلو كسوسي بورقة وحكوا قرب أفر ترى الريموت بين سكيل علينا وأفر تبوحي سمية ملعون كو لعن الله من ذبح لغير الله أي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي هل نعذله أمون نعذلابا أحد وحقرا ألا درتي وحنا النعلش وحا لنا هذا والضرد والإبعاد من الله أما من الناس والصب شطر أفلقات النقطة نعلش حقوده لكن waxay noqonaysaa xagga alle marka la yiraahdo markaas ilaahay waa nacdalay adoonka yaani wuxuu ka dheereeyay naxariis waxa la yiraahdo haduu ilaahay naxariista ka dheereeyana halaag ba ku dhamaado gowrucuna waa shay cibaada salli li rabbika wanhar nabiga maxaa lagu amray salaada islaam bay u tukanayaan adigu ilaahay u tuko asnaam baa wuxuu gowracaan adigu ilaahay wuxuu gowrac waa kowta salaadna waxa ay tahay la'ana allah man saraqa manar al-ard wa bila ilaahay mudnada ku tilay ilaahay rahmadaha ka fogeeyo waanu ka fogeeyay ahad ka xada waa in qayr bay sheegaysaa bedela manar al-ard manarku waa seesaska ama xuduudaha ama ijaarada xuquuqda dhulka u dhaxeeya ee dadku wada leeyihiin qofka xadaa muxuu sameeynaa habeenkii ku soo gudaya dabadna muskiye ijaarkii beerta u dhaxeeyay ama dhagaxii ama wixii uu raraya si uu dhulkiisa ugu darsado ama uu bedelaya wax ka bedelaya kana waa malcuun waa dhulka qofka shibra yaani ataaka min al-ard qofka ku qaata booli iyo xaaraan maalinta qiyaamo wuxuu la soo xaadiraya todoba dhul oo baqcadi uu xaday taakada ahayd todoba dhul inta uu hoosayso u sarreeysa loo saaraya qoorta ma la kici karayo waa uu halaagsamaya marka qofka dhulka xuduudda u dhaxeeya jaarkiisa xada waa malcuun ilaahay rahmadda ka fogeeyay wana isaaq diiraan nabtaarka dhigto xaqiisa ku xadgudubto waa halkii lagu sabafal wallahi la yuumin rasuulku ku celceliya rasuulku waxa yiraahdeen kaasuuhooga waa man la yaman jaaru bawaayiqa qofka dhibaatadiisa iyo masaayibkiisa jaarkiisu aanu ka nabadgelin tasaddexaad la'ana allah man la'ana waliday ilaahay rahmadda ka fogeeyay qofka nacdala labadiisa waalid oo qofku maladiisa waalidku nacdalaya way dhacda sarax inuu qofku waalidkiisa nacdalo waxa laakiin ku badanta inta badan yal'anu aba ahad fa yal'anu aba qofku aabihi nacdalaya isna wuu soo jawaabay dabadna kii bilaabay nacdasha aabihina wuu nacdal aabaha ninka kalena isaga nacdal labadiiba isaga qaatay waa malcuunkaasina dhalinyarada waxaan aabacay hooyacay iyo nacdal isuma jawaabaan hooyooyinkuna wax kale kuma tarbiyadayaan waxay ka bilowdaa cayda aabihi wixii ku dhalay oran aabihi nacala ku yaalka cayn kana oran isna uu ka hoos qaadaya dabadna kii yara kurigi kale ku talaalaya imika nacdasho way wada talaalanta jabiga dhalinyaradeena nacda baa ku talaal meel joogaan meesha nacdani gasha baraka ma gasho rasuulku hashi maqduumada ahayd ee la hogaaminaya farxudayda canaadiga noqotay gabadha tiri allahumma la'anha ilaahu tan nacda safarkii naga reebaysa si daawada hash saahida kala soo deg hal nacda la raaci maysa imisa guri baa nacda la misa aaba iyo walad iyo waalid baa nacda marka inuu rahmad baan xaqin ka sugay qodobka afraad u dambeeya la'ana allah man awa muhdith abu rasuulku muhdith waxa la yiraahdaa dhagar qabaha iyo bidcuulaha haddii mid dhagar qaba xagga dambe mariso oo xuquuqdii laga qisaas laga goosan lahaa aad ka difaacdo oo daalib umada u muusayso adna malcuun baad mar haddii muhdis balaaya qabo dhagar wada aad qarinayso malcuun baad tahay taad qarinaysaa muxuu yahay marka isagoo ixdaaskii balaayada geystay muhdasaduna waa la mid muhdas in daalkan la fadhiyo la kasriyo kala qaybsanay shayga bidcada dad ka hal noqoto mid balaayo iyo musiibo iyo utin iyo bidcaw adna la mid baad tahay malcuunna waa afarta arrimood ee khatarta dhacdo soo degtay baan isaga digtay ma ilaahay naga badbaadiyo wabillahi ta'ala tawfiq subhanahu